Soomaali baan u bedelay soo kale Chrome-kaaga meel waxa jirta af Soomaali laga bedelo haddii luqadda Ingiriiska kugu aragtay wad bedeli kartaa si aad u fahanto magaca iyo ciwaankayga waxaad iska diiwaan gelinaysaa dukaanka Kenya ma arkaysaa walaalo fadlan geli magacaaga iyo ciwaankaaga meelaha hoose goobaha lagu calaamadeeyay egas calaamadda egas ayaa loo baahan yahay xogta kafiilka yaa kumbaniga kugu soo diray weeyaan dooro mid ka mid ah saddexdan doorasho si aad u doorato qaybiyaha ama qofka distributorka si uu kuu kafaalo qaado kumbaniga wakiilkaaga noqdo yacni inuu adiga wakiilkaa yahay ta ugu horeysa ayaa dooranaysaa geli aqoonsiga qaybiyo waayo waa inaga de waa qofka sponsorka weeyaan si uu kuu sponsor gareeyo ID-giisa geli baa lagu yidhi marka aqoonsigiisa geli aqoonsigiisu waa kan 30 okay taasaraan gelinaynaa labada kale midna ma dooranaysa ta u sarreysaad dooranaysaa geli lagu leeyahay ID-giisa waad gelinaysaa kadib wakiilkaaga uu kuu soo baxay kadibna waxa weeyaan qaybta labaad ee personalka ayaad sii galaysaa macluumaadka shakhsiga markaad sii gasho iyadana waxaad samaynaysaa allahumma mustacaan halka taasar calaamadaha egas tuumaan buuxinaynaa ciwaanka iskaga teg magaca hore egas baa la yidhahdaa ama maxamed baa la yidhahdaa ka soo qaad magaca labaad cismaan baa la yidhahdaa okay oo ka soo qaad magaca dambe xuseen baa la yidhahdaa h ka soo qaad marka waa maxamed cusmaan xuseen okay taariikhda dhalashada waa xilliguu qofku dhashay 01 maalintii uu dhashay bishii uu dhashay iyo sanadkii uu dhashay okay English hadda ku daynana waa kan Englishka waa caadi qofka baasaboorkiisa lambar baad gelinaysaa baasaboora ID numberkiisaad gelinaysaa tagas BN lagama baana because xidig lagama horreysiin contact information xagee qofkan laga hela xagee haddii loo baahdo lagala xiriiri karaa meesha ugu horreysa magaalada uu degan yahay Islii ka dhig ama Nairobi ka dhig okay Islii baan ka dhignay xaafadda uu degan yahay halkeena kalena Nairobi baan ka dhignay okay tan hoostana waxaan gelinay waxbay nagu koobiyey koobiga waana ka saarno automatic way waan ka masaxaynaa hoostana waxaan gelinay telefonkii qofka post code-ka lambar baad iska gashanaysaa dhib male maxaa kaloo laynaga rabaa foonka xidigtaana cas baad ilaashanaysaa meel kastoo xidigtaa casi ay taallo waa lagaa rabaa walaalo telefon numberkii waan gelinay emailka qofka ayaynu gelinaynaa mar labaadna waynu confirm garaynaynaa emailku muxuu yahay marka sale usman 2@gmail.com banidi okay waa tusaale okay kana waa kan marka kadib waxaan leeyahay verify waa maxay waa hubi macluumaadkan aan soo geliyey inuu sax yahay inuu qalad yahay bal walaalo iga hubi weeyaan maxaa soo baxay marka waan hubinaynaa sponsorka haddaan ku dhufto waa Cusmaan personal information haddaan ku dhufto waa kan contact information haddaan ku dhufto waa kan maxaa ugu dambaysa geli lagu yidhi type qor the code-ka shown halkan yaalla code-ka waa maxay waa sidaa meesha ka muuqata ayaan gelinayaa code-ka adiga waxa lagaa rabaa keliya waxa samee lagu leeyahay inaad samaysood raacdo okay meela socotaan kadib markaa bogoska yar dooro bogoskaasna muhiimadda uu leeyahay waa saxiixaagii weeyaan waxa aan aqbalayaa kumbaniga xeerarkiisa weeyaan anay certify waxaan xaqiijinayaa inaan ahay 18 sano iyo wixii ka weyn ayaan xaqiijinaya haddaad ka yartaa laguma ogola kadib intaan markaan samaynay review baan leeyahay review waad arkaysaa soo ma walaalayaal meesha ku qoran tahay review hubi okay waka review wixii oo dhan waa naqtiin baan ku samaynaya wixii aan soo qoray oo dhan ayaa waxaan ku samaynayaa naqtiin waxaa laygu yidhi koodhkii aad gelisay qalad bay ahayd Cusmaanow mar kale ku celi waa yahay baan idhi markaa mar kale aan ku celinaya fiiriya haddaan koodhka qaldo sidaa ama xaraf yar xaraf weyn ka dhigo wallahi ma ogola waa lay diidayaa review baan leh mar kale inaan baasay in kale waan eegayaa marka okay maya waa lay diiday haddana talo maxaa laygu diidayaa egas ma yar tahay indhaagii waxaan arkayaa miya maanta XP 77F okay review baan leeyahay
review waa koodhka un weeyaan hadda wax kale maaha waxaan isku haynaa waa koodhka maxaad igu diidaysaa yaa muxuu igu diidayaa koodhka walaan fiiriya haddana iidii yaryarayd xarafka waa iidii yaryarayd k d b demer iudi yaryarayd taa hadduu ina diido dee garanba mayno cilad baa jirta malaa markaa okay re-enter address qofaa wixii soo qoraya tee wey nafiisa walaalo iminka maxaa halka layna yidhi demeriya waa inaad xarafkaasaa layga rabaa xarafkaa yar baa layga rabaa inaan geliyo baan isku haystaa sidii saxdii aan u geliyey saas sax maaha aan ku celiyey sug wixii kaloo dhan waan dhammaynay kan hadda haddii uu qaldo systemkaa qalada because bacduna way yar tahay soo ma waa 7665 intaasoo ma walaalayaal kan hadduu cilad yar baa jirtay saxayaan haddii ma garanaysaaye uu ina diido innaga maa xaggeena 7665 inama diidi kara hadda so saas maaha way la socotaan ma filaya okay waay waa kenya markaad qof ka diiwaangelinayso kadib waxaan leenahay markaa waa inuu ogolaado haddii kale cilad baa jira halkaasaan ku joojinaynaa okay waa inuu dhammayna wixii kaloo dhan cilad baa jirta qalad weeyaan buu inoo soo qori lahaa cilad yar baa jirta xaggooga okay haddaynu qaladno wuxuu inoo soo qori lahaa casaan adigu markaad halkaas soo istaagteed qorto waxaa kuu soo baxaya macluumaadka iska hubi kadibna summit baad leedahay summit haddaad tiraahdo screenshot ka qaado kadibna waxa weeyaan qofkii saas ayuu ku diiwaangashay markaad kenya joogto marka sidee dalabka loo sameeyaa okay kenya markaad joogto dalabka sideed u samayn kartaa iyadana aan iniigu daro ugu horreyn waxaad geli doontaa account-kaaga ayaad geli doontaa allahuma mustacaan haddaynu account ka fiirino account-kan waddankii buu ka diiwaangashan yahay soomaaliya muqdisho ka diiwaangashan yahay oo adiga arkaya waa niina waxay rabtaa tusaale ahaan inay ka samayso kenya dalab online-kay rabtaa inay ka samayso maxay samaynaysaa waddankay soo bedelanaysaa africay tegaysaa kenyay dooranaysaa okay kenya markay doorato website-kii waa kan halkan uu keenay kadib alaabtii bay dooranaysaa tusaale waxay u baahan tahay 5 xabood daawada ilkaha ah ilkaha markaan u baahanahay waxaan tegayaa personal care personalkaas tegaya 5 xabaan u baahanahay tusaale ahaan 5 xabood daawada ilkaha waa kan waan gelinayaa anoo muqdisho joogaan rabaa qof inaan u dalbo alaabta kenya jooga saan ugu dalbayaa 5 xabo waka okay shaambada waxaan rabaa iyadana 2 xabo okay condition-kayga iyadana 2 xabo laba intaan geliyo unban ad leeyahay oo ku darsanaya salada okay online baa ka shaqeeya kenya waaya intaa markaan sameeyo malabkii oo kale haddaan u baahanahay alaabtii oo dhan waan ku wada guranaya kadib intaa markaan sameeyo waxaan leeyahay xaggan midigta fiiri imise shay bay ku jira intana ay ku jirta okay waxbaa yara qaldan alaab kalaa kusii jirtay marka waan update garaynayaa shaambada 2 dalbaday shaambada maxaan dalbaday 2 condition-kana 2 dalbaday somaaliya wixii kale waan ka saaraya kadib intaa markaan dib u saxay update baa leeyahay update gareeyey haddaan doonayo inaan salada ku haysto berriyo kale dalabkan sameeyo meesha ku sii rito save garayso halkaa taabo save day okay intaad save tiraahdo halkaasuu ku olayaa dhib male xilligaa doontaa dalban kartaa hadda save baan idhi 9 shay baa ku jira waxa weeyaan xilligaan doonaan samayn karaa haddaan imika raba inaan lacagti bixiyoon dalbadana dee check out baan le halkaare huruudda ma arkaysaa check out waa maxay waa bixi lacagta okay check out mar kasta luuqadda ingiliishkaad ka dhigan karta haddaad isticmaalaysa chromeka check out markaan sameeyo waxaa laygu yidhi ma gurigaa lagugu keenaa mise big up baad dooranaysaa keen doorta marka haddaan dooranayo big up inaan meesha ma garanaysaa waxa weeyaan lacagtii inaan bixiyo hadhowna alaabta soo qaato kaasaan dooranayaayo xaruntii shirkadda ay soo baxaysa lambarkeygii wax walba
nairobi office baan kusii dhufanaya kadibna continue baan leeyahay kadibna waxa weeyaan allahu mustacaan lacagtii baan bixinaya haddii laakiin aan doonayo inaa guriga laygu keeno lacag yaro 400 shilin baan bixin adresskaygana waan gelin adresska waxaan gelinayaa halkan waxaan leeyahay slee meeshaan alaabta loo soo dirayo first name-ka qofka alaabta loo diray Nina tusaale ahaan name-kayga dambena waa Maxamed adresska slee baa iskaga qori karaa no problem haddii aad wax kale kasii garanaysa meeshaad kasii degan tahay sleena waad gelin kartaa magaalada waa Nairobi okay Kenya post code-ka wax iskaga qor telephone number-ku qasab maaha waa iskaga tegi kartaa kadibna continue okay waa sida dalabka looga sameeyo Kenya qaab online ah kadib waa ka maxay soo baxay iska hubi waa talaabadii ugu dambeysay weeyaan waxa la igu dhahay alaabtaadii waxay noqotay 13,500 cashuurtina way ku jirtaa 400 oo Kenya money ayaana ma garanaysaa lagugu keenaya shiminka Kenya oo dhan meesha doontaan noqoto waa 400 oo Kenya money kadibna finish and pay dhamaystir oo lacagta bixi weeyaan kadibna M-Pesadaydii baan gelinayaa M-Pesada markaan geliyo qofka lambarkaygaan aqbalaya code bay soo dhacaya markaa okay markaa imika wax iska sii gelino saale okay halkaa markaa continue baan leeyahay okay saale 121 ayaynu waxay noo soo dhacaya maxay code bay noo soo dhacaya codekaasi markuu inoo soo dhaco aynu aqbalno sidaas ayaynu ma garanaysaa alaabtii markaa aynu haddii aynu lacagtii bixinay markaa okay haddii kale ku celi buu inoo odhan doonaa mar kale aynu ku celin accept baad odhan calaamaddan intaa taabato finish and pay mar kale simple receipt-kii baa kuu soo dhici email buu kugu soo diray company buu ku soo wici doonaa alaabtana way kuu soo dirayaan simple si fiican ma u fahantay qaabka qofka Kenya jooga loo diiwaangeliyo isla markaana dalabka loogu sameeyo qaab online sida loogu sameeyo si wanaagsan ma u fahantay qofka Kenya jooga adigoo jooga Djibouti baad qof Kenya joogto u dalbi kartaa online lacagtana online buu ku bixinayaa simply Soomaa walaalayaal kawsar way fahantay ma sha Allah iyo waliba sida loo diiwaangeliyo wadanku baad bedelaysaa kadibna macluumaadka wada akhriyaysaa wada raacaysaa waaya haddii aanad fahmin 9 soo qor fadxiya abane walaalo groupka lagu soo dhigi fadxiya insha Allah waaya haddii aanad fahmin qaabka dalabka loo sameynayo Kenya ma garanaysaa loo diiwaangelinayo soo qor ma garanaysaa iyadana 9 soo qor khadiija 9 bay soo qortay may fahmin bay ka dhigantay waaya qof kale oo fahmin ma jira qof kale oo fahmin ma jira waa Kenya markaad qof alaab aad uga dalbayso weeyaan waxaad tagaysaa marka hore account-ka login baa soo leedahay kadibna shop baad leedahay kadibna alaabtii baad dooranaysaa alaabtii markaad salada ku wada gorato check out baad leedahay kadibna waxa weeyaan check out baad sii leedahay waad bixinaysaa walaalayaal check out markaad doorato adresskii wixii baad sii gelinaysaa kadibna waxa weeyaan allahu mustacaan continue baad sii leedahay kadibna waxa weeyaan waa terms and condition-ka waa finish and pay M-Pesadii baa la gelinayaa marka okay ma sha Allah aad baad u mahadsantiin marka Kenya waan fahnay soo ma haddaad fahantay Kenya sida qofka looga diiwaangeliyo alaabtana looga dalbo waxaad soo qortaa 3 soo qor 3 soo qor Kenya haddaad fahantay sida qof looga diiwaangeliyo haye Fawsiya way fahantay hambaliyo Fawsiya ma sha Allah hambaliyo Faadumo ma sha Allah congra Cabdixaafid hambaliyo ma sha Allah haye waaya yaa kale noo hambaliyana fahmay waxa fahmay oo noo hambaliyana Fawsiya okay ay Fawsiya qofka ugu qoran tahay Ahmed Mohamed Ali ma sha Allah waaya Khadija okay ma sha Allah soo isku mid ma sida loo dalbayo Nafisa waaya waan fahmay good very good waad fahanteen Kenya sida dalabka looga sameeyay meesha doonta joog
waddan kale soo qora oo aanad fahansanayn sida iyadana ama dalabka looga samaynayo ama loo diiwaangelinayo waddan aad doonayso qof inaad ka diiwaangeliso ii sheeg aan ku tuso Ireland. Okay, Ireland way fududaan malaynayaa waxaynu samaynaynaa mar kastaba maxaynu samaynaynaa waxaanu website-kan tagaynaa martaba meesha la naga xukumaya waa website-ka kumbaniga weeyaan isaga ina geenaya oo inoo transfer gareynaya meelaha kale qofkan account-kiisa ka bax marka hore account-kaaga ka bax log out waayo adigoo account-kaaga ku jira kale ma diiwaangelin kartid